Asalaamu calaykum asxaabta qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Samooda soo dhawaada. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalka maantana wuxuu ku saabsan yahay 3 dowladood oo kamid ah ururka Jaamacadda Carabta misna aanan ku hadlin luqadda Carabiga. Balse inteena si toos u bilaabin faahfaahinta muuqaalka, fadlan like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada wixii fikirkaaga ayna nugula wadaag qaybta commentiga. Ururka Jaamacadda Carabta waxaa la aasaasay 21kii bishii Maarso 1945 waxaana aasaaseen 7 dowladood oo kala ah Masar, Suuriya, Lubnaan, Ciraaq, Jordan, Yemen iyo Sacuudi Carabiya. Waqti xaadirkan aynu joogno ama sanadkan aynu ku jirno oo ah 2022 waxay ururka Jaamacadda Carabta ka kooban yihiin 22 dowladood, balse 22kaasi dowladood kuma wada hadlaan luqadda Carabiga. 19 dowladood oo kamid ah 22ka dowladood waxay ku hadlaan luqadda Carabiga. 19 dowladood oo kamid ah 22ka dowladood waxay ku hadlaan luqadda Carabiga. 19kaas dal ee luqadda Carabiga loogaga hadlana waxay kala yihiin Algeria, Bahrain, Masar, Ciraaq, Jordan, Kuwait, Lubnaan, Libiya, Morocco, Mauritania, Cumaan, Falastiin, Qatar, Suudaan, Suuriya, Sacuudi Carabiya, Tunisia, United Arab Emirates iyo Yemen. Saddexda dal aan loogaga hadlin luqadda Carabigana waxaa ugu horeeya Soomaaliya. Soomaaliya waxay ku taalaa Geeska Afrika waxayna deris la tahay Kenya, Itoobiya iyo Djibouti. Soomaaliya waxay ku biirtay ururka Jaamacadda Carabta sanadka markii uu ahaa 1974. Ku biiridda ay Soomaaliya ku biirtay ururka Jaamacadda Carabta waxaa lagu tilmaamaa inay ku fududaatay shacabka Soomaalida waxay ku hadlaan luqadda Soomaaliga. Soomaalidu waxay ka kooban yihiin hal qowmiyadood misna haysta hal diin. Habka wanaagsan. Dalka labaad ee ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta misna aanan loogaga hadlin luqadda Carabiga waa dalka Djibouti. Dalka Djibouti wuxuu ku yaalaa waqooyi wuxuuna deris la yahay Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya. Shacabka Djiboutiyaanka waxay ka kooban yihiin 2 qowmiyadood oo kala ah Soomaali iyo Canfar. Shacabka Djibouti waxay ku hadlaan dhowr luqadood, balse labada luqadood ee ugu badan ee shacabka Djiboutiyaanka ku hadlaan waxay kala yihiin luqadda Soomaaliga iyo luqadda Canfariyiinta. Inkastoo luqadda ugu badan ee Djibouti loogaga hadlay ay tahay luqadda Canfariyiinta, balse arrinka kale oo la yaabka leh waa in dowladda Djibouti ay shaacisay in labada luqadood ee rasmiga ah ee dalka looga hadlay ay tahay luqadda Faransiiska iyo luqadda Carabiga. Laakiin shacabka u dhashay dalka Djibouti aad bay ugu yar yihiin dad ku hadla luqadda Carabiga. Waa sida Soomaalida oo kale. Soomaalidu kuma hadlaan luqadda Carabiga in yar mooyee. Djibouti waxay ku biirtay ururka Jaamacadda Carabta 2 bilood kadib markii ay madax-bannaanideeda ka qaadatay Faransiiska. Dalka saddexaad ee ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta misna aanan loogaga hadlin luqadda Carabiga waa dalka Comoros Island. Waa dal yar oo jasiirada ah wuxuuna ku yaalaa cidhifka waqooyi ee Badweynta Hindiya una dhaxaysa Madagaskar iyo Koonfur Bari ee Afrika oo qiyaastii 180 meel u jirta xeebaha bari ee Afrika. Comoros waxay ku biirtay ururka Jaamacadda Carabta. Comoros waxay Jaamacadda Carabta ku biirtay sanadka markii uu ahaa 1993.